bismillah xiisadan laga sheegay baryahan annaga idaacadan aan ka dhageysanay abal xiisad baa ka jirta arrintaas hadee kulley hadalhaynteeda waa jirtaa laakiin annaga wax noo muuqdo oo xiisad ah ilaa iyo hadda ka ballaamay mase hadda ka jira ma laha. maxaad maqasheen idinku? annaga sideedaba waxaa weeye warbaahintan waxaan ka maqalnay ninka la yidhaahdo Mukhtaar Robow in laga qaaday lacagtiisa annaga in laga qaaday markii horena in la saaray naloo sheegay haddana in laga qaaday waa maqalnay laakiin wax faahfaahin oo arrintaas ka soo baxday ilaa iyo hadda ma hayno. laakiin dadku waxay leeyihiin mar haddii laga qaaday Mukhtaar Robow adunu jiraa abalu tagay intuu tagay ilaa iyo wararkaas waxaa laga sheegaya xamar iyo baydhabo iyo meelahaas wararkaas laga wado waa maqalnay laakiin annaga war uma hayno. waa gartay laakiin maadaama meesha gobolkaagii tahay magaalo madaxdiina 18 kilomitir u jirto dadkuna waxay kugu xamanayaan adiga inaad arrintaas si gaara uga warqabtid marka xaaladda ka jirtay dhabtaa waa sidee meesha? arrintaas waxaa weeye dhanni la way moogii annaga gaar ahaan awalba wada shaqeyn ma lahayn haddeertaana intii maxay ato arrintaan la sheegayna wax war aan naga soo gaarin male wax xiriira horey noogu dhexeyna male solo waxaan iskaga wareyna gobolka Bakool baan iskula noolnahay guud ahaan moogii wixii xaalad ka jira abal iyo wixii xaalad ka jira Mukhtaar Robow iyo qoladan shabaabka wixii dhexdooda ah war uma hayno. haddii wax faahfaahin ay soo baxaan kulley hadda dalad maxay ato oo fadhi ku dirirka waxbaa la sheega meelaha laga sheegay laakiin aniga u dhoweyn abal intaas u jirnaba war uma hayne meelaha kaleeta war laga sheegaya kulley meel ay ka helan ma aqaan. waa gartay marka maadaama horta aad mas-uulkii gobolka tahay barasaabkii tahay waxaan ku weydiinaa dabcan wax rasmiya weeyaan waxaana kaa filanaynaa wax rasmiya marka goormaa xiriir ahaan isuukiin dambeysay adiga iyo Robow? anigii Robow wax xiriira hadda aan leenahay male 10 sano ka hor markii maxay ato maxaakiimta ay burbureen ka hor 10 sano markii maxaakiimta ay burbureen yaa noogu dambeysay islaadeen ama wax isku weydiinayno inta waqtigaas aan noogu dambeysay waqtigii dhaxdan ka dambeysayna colaad baana dhaxtaal markii shabaab ay asaga iskhilaafeen ayagii shabaab dhaxdooda leh meel bay maxay ato oo meeshaan maxay ato deegaankaas asaga awalba u dhashay ayuu ninkaas iska joogay laakiin wax xiriir ah iyo wax tala iyo wax tusaale aan dhex yaalin ma laha. wax colaada ma idin dhex taala ama nabada? waxa berigii hore colaad ba jirtay laakiin maadaama cadow isku jireen asaga cadowga anaga oo ka go'ay meel gooniya uu tagay gaar ahaan xiriir gooni aan lahayn de colaad kale nama dhex taalo wax colaadana dhex yaalo male. laakiin berigii hore colaad ba jirtay laakiin dadkii markay isku duubnaayeen colaad baan dhex taal laakiin maadaama cadowgii uu ka go'ay oo meel gooniya uu tagay wax colaadana dhex yaalo male wax kale aan dhex yaalin haddana male. marka xiriir miyaa idin dhex maray maadaama uu meel u dhow Xudur joogay howlgalla aad ka samayseen Xudur iyo agaarkeeda idinka iyo ciidamada AMISOM siiba kuwa Ethiopia aad ku baxdeen isaga mar walba waad garab marayseen marka xiriir miyuusan jirin meesha ah inaad kala leexataan? annaga meesha abal la yiraahdo 3 jeer aan weerar ku tagnay ma ka leexinaynin asagana ma joogo abalba ma joogo abal waxa haystay nimanka shabaabka joogi marka howlgalka abal aan ku tagnay intaasoo jeer Mukhtaar Robow deegaankiisu jira marka taas ayada looma qaadan karo maxay ato inaan agmarnay mas'an deegaankiisa agmarnay deegaankiisa marka hore awalba awal intaas jeer aan tagnay asagana maba ku sugnaan aagaas. hadda halkuu ku sugan yahay? meeshiisu jira annaga war intaasaan war ku hayna meelahi asaga awal joogi jira inuu ku jiraan war ka hayna annaga. waa halkee meeshaas? xagga xamar aagaas war uma hayno baydhow war uma hayno laakiin deegaankii awal uu jiray meeshaasaan ku tusinay inuu jiro hadda. abal yaa jooga hadda oo gacanta ku haya? adan hadda awalba nimankii joogi unbaa joogi nimankii maxay qoladii shabaabka awalba joogi meesha ayagaa degan ayagaa canshuur ka qaaday meesha ayagaa degan hadda markaan ogahay aniga. marka Robow ma joogo abal inta adiga ogtahay? abal ma joogo Robow ninkii waa joogi yireen been buu sheegay. xagee buu joogaa? dabcan waad la socotaa maadaama gobolka meesha asaga awalba aad ku wareyseen abal ma degneen wuxuu jira abal kishiisu jira meel deegaankiisa oo kor u jira. maxaa la yidhaha meeshaas? hadda meel magac leh ma aha duurkaas waayo meel magac leh oo meel hebel ku jira dhaay male asaga u gaartay kulley meesha asaga uu degan yahay anagana barxibal uu degan yahay ninkaas uu ku jira ma dheegan. waaye shalay waxaa idaacaduhu sheegeen la soo gaadhay in ciidamo aad u dirteen oo ka baxay Xudur deegaankaas aad u dirteen ma jirta arrintaas? arrintaas ma jirto taas ayada waa ka xunnahay in wax beena mase idaacadaha ay ka sheegaan waxaana ayaga maxay too aan ogeyn ninka sidaas yirina wuxuu yiri koonfur galbeed baa ciidan u dirtay Mukhtaar Robow oo taakuleena koonfur galbeed meel walba waa joogtaa baydhabo joogtaa jubbada shabeellaha hoose joogtaa waajida joogtaa laakiin wax gobolka Bakool oo ciidan laga diray Mukhtaar Robow loo diray ma laha meelaha kale koonfur galbeed inay wax ka diraan war maayo. waa gartay marka maadaama meel walba aad war u hayn idaacaduhu
ila kala duwan bay warka ka soo xigtaan sow lama dhihi karo waad qarinaysaan inaad ciidan u dirteen maadaama aysan arrimuhu weli idiin bislayn ciidan dagaal loo fadi ma qarsoomayo ciidan marba haddii dagaal loo diro uu ka tago oo meel uu tago ma qarsoomayo laakiin waxa waaye kutirikuteen la way qiyaas le way moogii waa gartay ciidan howlgal aadi ma qarsoomayo waa gartay marka haddii roobow uu kula soo xiriiro adiga ama maamulka ama koonfur galbeed baan dhahno oo uu yidhaahdo ciidan xoog la ay kor fadhiya sida maalmahan la sheegayo taageeradiina u baahanahay culayska laga kor qaado jawaabtaadu maxay noqonay taas ayadaa jawaabteedu waxaa weeye koonfur galbeed waxay leedahay madaxweyney leedahay waxay leedahay wasiir maxay ato oo amnigay leedahay wax walbay leedahay waxay ku xiran tahay arrintaasayta madaxda sare ay ku xiran tahay maahana gobernator gobolkiisa jooga amarkaas ma bixin karo mana ka suuragalayso laakiin arrinta ayadaa haddii asaga taakuleen rabo haddii asaga wax rabo anaga shuqul kuma lehin laakiin koonfur galbeed hasu ku rabo madaxday leedahay madaxdaas kala xiriir haddii ilaa yidhahdo waa gartay laakiin waxaan ku yidhi haddii uu soo codsado adna madaxdii gobolkaad ka mid tahay siba mas-uulkii gobolka ugu sarreeyaa tahay bakool haddii uu soo codsado aragti ahaan ma waxay kula tahay in loo diro mise inaan loo dirin aragtidaadaan ku weydiinaya taas haddee waxaa weeye aniga in la amraan kuu sheegaa ma og tahay markii amarkaasna lasoo siiyo oo taliyaha ciidanka guutada halkan joogto waxay leedahay gaashaano sare haysto gaashaano sarena waxaa xukumahaya ciidan taliya ciidana xukuma waa gartay amarka iyo ciidankiisa u kala sarreeyaan waa gartay laakiin adiga fikradaada shaksigaan ku weydiinayaa barasaab ahaan maxay kula tahay in ciidan loo dirayo inaan loo dirin taas ayadaa waxaa waye cancel laisugu imaado oo maxay ato cod la qaado way laakiin codkaas markii laisu imaado see la yeelaya la yidhahdo oo koonfur galbeed mas-uuliyiinteeda ay isu yimaadaan fikradeyda markaasaan baxsanaya laakiin anigu keligay inaan ku idhahdo arrin saasaan qaban maaha okay waayo su-aasha u dambaysa guud ahaan in laga qaado xayiraadaas lacagta liiska uu ku jiray seed u aragtaa roobo adiga marka horeba anaga hala saara ma dhihin xayiraada mukhtaar roobo xayiraad hala saara ma dhihin ciddii marka hore saartay hadday haddana ayagu ka qaado ayadaa utaala taas laakiin adigu ma soo dhaweynaysaa mise mad ku faraxsan tahay mise kuma faraxsan aniga waxaan ku faraxsanahay haddiisan waxba ii haysan oo isaga maxaata una qabateynta la saarayna laga qaaday marka horena markii la saaray anigu taladayda ahayn nasiibkiisu waay haddii laga soo qaaday marka waad soo dhaweynaysaa macnaha nin maxay ato oo barnaamijkan oo una qabateynta nin walba maxay ato fikrid buu leeyahay fikridii lagu saaray aniga ma lahayn tan lagu qaadina aniga ma lahayn marka waxaa waaya soo dhaweynteedii qaadadeeda wax dan ah oo igu jiriba ma laha